السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا إسلامي walaalaha meel walba aad joogtiin maanta waxaan rabaa inaan isla fiirino buy limit videogan videoga ka horeeyay wuxuu ahaa stop limit laakiin hadda waxaan fiirinaynaa buy limit Binance markaa u furtid safxadiisa koowaad waxaa kuu soo baxayso all cryptocurrency-ga oo meeshaan yaala haddaad dhahdid oo ku boodid waxaad dhahdid Ethereum aan gadanaa mise waxaan gadanaa Cardano mise waxaan gadanaa mid kale oo tusaale aan Cardano haddaan ku dhufano Cardano hadda wuxuu marayaa 1.78 Soomaan haddii buy aad dhahdid lacagteed waa euro adiga waxaan u maleynayaa USD inay tahay USD okay USD aad dhahday lacagtii aad qortay buy aad dhahday marka maxaa buy garaynaysaa Cardano oo 1.78 hadda kor haddaa fiirisid waxaa ku gadanaysaa 100 marka lacagtan Cardano ayadoo ka yar aa gadan kartaa marka qaabkan u gadatid waxaa ku gadanaysaa lacagta suuqa markaas ay marayso way la fahamteen umaleyna laakiin qaab kale jiro qaabka kale waxa waaye waxaa aadaysaa qofkii fahamsan waa fahamsan yahay laakiin waxaan la hadlayaa dadka si toos meeshaan waxa uga gato si toos meeshaan intay imaadaan Cardano rabaa Cardano bum ku dhufanayaan buy dhahayaan lacagta qorayaan waa laga fiican yahay okay maxaan sameynaynaa waxaan aadaynaa meeshaan ugu koreyso profileka ninka madaxa taagtaagayo aad taabani safxadaanu ku keenay Binance Lite meeshaan calaamadda jaalada aad taabani wuxuu ku geynayaa Binance Pro waxa waaye Binance Professional loogu talagalay suuqana meeshaan ka xukumi kartaa marka meeshaan hoos trade ay ku qoran tahay tradekaasaad taabanaysaa hadda Cardano markaad gadanaysid Cardano markii koowaad aan usoo noqon hadalka meeshaan wax kama gadan kartid haddii lacagtaada US dollarka ama eurada ayna ahayn USDT inaan u noqono waaye USDT waxa waaye Bitcoin waa 1 Ethereum waa 2 PNP waa 3 USDT waa 4 number 4 ku jirtaa marmarna number 5 ay soo gashaa markay kuwaan kacaan hadda Cardano shalay number 4 marayay hadda suuqiyaa dhacay suuqa markuu dhacay USDT-dan koray usoo kacdaa maxaa yeelay dadka markay ka baxaan Bitcoin-ka iyo Ethereum-ka lacagtooda waxay geliyaan USDT sababta USDT waa 1 euro isma bedelo marka meeshaasay lacagta ku save garaystaan oo chance markay helaan ay wax ku gataan marka adigu marka koowaad waxaa lagaa rabaa inaad samaysid deposit inta waxaan dhan aadan sameynin meesha deposit-ka imow wuxuu ku leeyahay maxaa rabtaa inaad soo deposit garaysid aniga lacagteeda waa euro meeshaan ku keenayaa qof walbana waxaa midkan saddexaad aan isticmaalaa oo si direct lacagta igu shubaa inkastoo uu fee jiro laakiin janiska marka hadduu jiro ma jecli inaan sugo 1.30 waa ka maarmaa janiskaasa iga muhiimsan midkan kore bank transfer waa free zero laakiin lacagta markaad ku shubtid lacagta waxay noqonaysaa inaad sugtid maalin mise 2 maalin marka ani
kan saddexaad aan isticmaalaa idinka waxaan umaleynaya kan saddexaad optionkaas inuu wadankiina lahayn oo option kale leeyahay marka adiga waxaa sameynaysaa optionka adiga kuu fudud aa lacagta ku bixinaysid oo deposit dhehaysid 100 aan dhahay commissionka waxaa laga jirtay 1.30 bangigayga select bank uu leeyahay bangigayga waa select gareeyay continue aan dhahayaa bangigayga u geenayaa bangigayga markaan taabto number siriga markaan qoro tusaale ahaan number qalad aan qaraaci waa ogahay markaas waxaa waye lacagtii meeshaas uu kusoo shubaya hadda marbi lacag inaan ku shubo iga noqo Binance-ka u noqonaynaa lacagta markaa ku shubtid oo lacagta meeshaan imaato hadda waxaa aadaysaa USDD inta waa ka gadan kartaa oo kan ma baahnid inaad meeshaas brow aadid baya leedahay 100 kii aan soo shubay buy waa gadatay kabacdi lacagteeda waxay i aadaysaa USDD okay marka USDD da lacagta aan kusoo shubano oo 100 aan haysano oo USDT kabacdi waxaan aadaynaa Binance Pro geeni Binance Pro markaan imaano trade aan tegaynaa ani hadda Cardano inta ii saaran iyo USDT meeshaan kor hadda aragtid ayada haddaan taabto all market-ka ii soo baxaya waxaan rabaa wax kale inaan raadiyo kasoo qaad Doge waxaan rabaa inaan gato marka Doge midka koowaad waa Doge USDT mise Doge BUSD mise Doge Bitcoin-ka mise Doge Australian lacagta miya AUD waraa Doge euro xataa waan ku gadan karaa eurodeeda waan ku gadan karaa okay aawe dollarkii markaa aniga dollarkii ma tusaayo waxay tusayaa euro laakiin adiga hadduu dollar ku tusaayo marka waxa waaye waa okay marka USDT aan dhahay marka maxay ahayd waxaan rabnay Cardano marka ani Cardanodan aan jeclahay sababta ma aqaan buy waa limit mujida meeshaan limitka ku qoran yahay Cardano hadda meequu maraya wuxuu marayaa 1.77 waxaan dhahay maya naga daa waa igu qaaliye Cardano markuu 65 1.65 imaado iigad lacagta igu jirtana 100 waaye waxaan leeyahay 100% gad hadda lacag iguma jirto laakiin hoosta haddaa fiirisiin orderkaas mar horaan sameeyey Cardano waxaan ka gatay 45 waa maanta waxaan ku sugayaa 1.65 midda ka hooseysana waa Matic USDT waxaan gatay 37 coin waxaan price-ka aan ku sugayana waa 2 euro marka labadaasba waa sugayaa markay ii imaadaan hadday soo degaan nasiibkaygu fiican yahay marka ayadoo ka raqiisan lacagta hadda ee meesha lagu sheegayo ayadoo ka raqiisan aan gadanayaa inkastoo aan u maleynayo inuu soo noqonayo laakiin waa sugaa marka adiga saasaa samayn kartaa waxa waaye lacagta limitka waxaa leedahay baalkan hataa waxaa samayn kartaa waxaa leedahay 1.50 markuu imaado iigad laga yaaba suuqa maalintaas inuu wareersan yahay oo kor iyo hoos u socdo marka 1.50 aa leedahay iigad marka meeqa 28 senti aad maxaa la dhahaa ii sheeg markay ka hoos soo dhacdo aa ka gadanaysaa marka waxaan rajeynayaa inay fahamteen meeshaas haddaa wax gadanaysiin buy limit ku gata buyga tooska ha gadanina sababtoo
suuqan waxa waaye maanta dhan kor iyo hoos u socdaa. Marka insha Allah saas videogan ha laga faa'iidaysto. Wixii su'aal ah waxa waaye insha Allah isoo qora insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.